بسم الله الرحمن الرحيم ما ka shakaysantahay in fitamiinada iyo macdanta qaar ay cunuga ku yar yihiin mana jeceshahay inaad ogaatid astaamaha lagu garto adigoon shaybaar marsiinin haddii jawaabtu haa tahay casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada nafaqo darrida waa mid carruurteena aad ugu badan laakiin nasiib xumo waalidiintu badanaa ma fahmaan sababtoo ah carruurta sida dadka waaweyn oo kale uma sheegtaan umana sharxi karaan sida loo hayo sidaa darteed waa in waalidku aqoon u leeyahay waxyaabaha jirkooda kasoo muuqda taasoo tilmaan u ah fitamiinada ka maqan kow cunuga oo si fiican u koraynin ama muuqaalkiisu ka yar da'diisa ciladan waxay badanaa timaadaa markay jirka ku yaraadaan fitamiinada muhiimka ah lafaha iyo murqaha sida calciumta fitamiin D-ga fosfooraska iyo magnesiumta taasoo keeni karta in cunuga fadhiga ama socodka ku daaho ama si qaldan u socdo sida dalbo oo kale lafaha oo xanuuna ama barara sida gadafka ama lafo jileeca labo cunuga oo sikadiisa ah waxbarashada ugu liito xifdinta oo dhibto adeegsiga maskaxda oo culays ku noqoto tan oo astaan u ah markuu jirka ku yaraato macdanta qaar sida omega 3 birta ayodiinta zinkiga iyo koliinka kuwaasoo muhiim u ah shaqada iyo kobcinta maskaxda saddex cunuga oo tamarta ku yaraato aadna aragtid inuu si dhaqso ah u daalayo taasoo tilmaan u ah inuusan cunuga helin cunno ku filan ama la siiyo cunno aan nafaqo lahayn taasoo keenta in fitamiinada qaar ku yaraadaan sida ironta fitamiin B12 fitamiin D-ga macdanta potassiumta iyo magnesiumta afar cunuga oo difaaciisu yaraado oo mar walba hooyadu isbitaalku la taagan tahay tan oo tilmaan u ah in fitamiinada difaaca jirka qaabilsan ay ku yar yihiin sida fitamiin C-ga fitamiin D-ga macdanta zinkiga iyo birta shan cunuga oo ilkaha ka daataan ama ka balolaan ama ilko aan tayo lahayn usoo baxaan tan oo tilmaan u ah yaraanshaha fitamiin D-ga calciumta fitamiin E-ga iyo macdanta fosfooraska lix cunuga oo calool fadhi joogto ah yeesho tan oo tilmaan u ah markay fitamiinada qaar jirka ku yaraadaan sida fitamiin B1 B2 B3 iyo B6 kuwaan oo muhiim u ah dheefshiidka sidoo kale markuu fitamiin D-ga iyo macdanta zinkigu ay yaraadaan ama cunuga aan la siininba cunno fiber ama qolof leh toddobo cunuga oo yeesha tin boor leh ama midabkeedu isbedelay ama jajabayso ama tintu aysanba koraynin sidoo kale cidiyaha oo siibto ama midabkoodu isbedelaan waxay tilmaan u tahay yaraanshaha fitamiinada qaar sida fitamiin C-ga macdanta biotinka birta iyo omega 3 sideed cunuga oo hurdadu ka qasanto dhaqso jiifan karin ama subaxii dhaqso soo kaca ama habeenkii socodkiisu ama gadgadoonkiisu uu badan yahay waxay tilmaan u noqon kartaa yaraanshaha macdanta magnesium fitamiin B6 fitamiin B12 birta iyo fitamiin D-ga ugu dambeyn waalidow haddii aad cunugaaga ku aragtid astaamaha aan kor kusoo xusay aadna ka shakisid in fitamiinada ama macdanada qaar ay ku yar yihiin fadlan la kaasho dhakhtar ku takhasusay cudurrada carruurta si baaritaanada ugu habboon kuugu diro ama daawo kuugu qoro fadlan fariintan la wadaag waalidiinta waana mahadsantahay